munaasabadan lagu maamuusayo xuska toddobaadka dhaqanka ee ka socota xarunta deegaanka Soomaalida Itoobiya ee la xusayo markii lixaad ayay ka soo qayb galeen qoomiyadaha iyo shucuubaha kala duwan ee dalkan Itoobiya kala socda dhammaan deegaanada dalka isla markaana xuskan toddobaadka dhaqanka ee lagu maamuusayo magaalada Jigjiga ayay qoomiyadaha iyo shucuubaha kala duwan ee dalkan Itoobiya ku soo bandhigeen ciyaar dhaqameedkooda kala duwan oo markaasi ay dhex goosheen lamiyada magaalada Jigjiga waxaana ciyaar dhaqameedkan hormoodka ahaa oo horkacayay baambeyda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo markaasi iyaguna si cajiib ah soo bandhigay xirfad muusigeedka baambeyga qoomiyadaha iyo shucuubaha kala duwan ee dalkan Itoobiya ee xusaya xuskan lixaad ee toddobaadka dhaqankana ay soo bandhigayeen ciyaar dhaqameedkooda kala duwan ee bilicda wanaagsan xuska toddobaadka dhaqanka ee lagu maamuusayo xarunta deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa maanta lagu soo bandhigay ciyaar kala duwan oo qoomiyadaha kala duwan ee dalkan Itoobiya oo si wada jira ay soo bandhigayeen ciyaar dhaqameedkooda kala duwan iyadoo taasina ay kor u qaadayso isdhexgalka iyo kor u qaadida dhaqan wanaagga qoomiyadaha iyo shucuubaha kala duwan ee dalkan Itoobiya dabcan waxay munaasabadan ku soo hagaagtay xilli dadkan ay soo bandhigayeen ama qoomiyadaha soo bandhigayeen ciyaarahooda kala duwan in cimilada roobku hal mar isbedesho oo roobku markaasi uu bilowdo isla markaana qoomiyadaha kala duwan ay farxad ku dhaxmariyeen magaalada Jigjiga gudaheeda mudane baasha cabdi ismaaciil waa wasiir ku-xigeenka xafiiska arrimaha dawladda dhaqanka iyo dalxiiska oo markaasi waraysan la yeelanay ayaa ka warbixinaya xuskan toddobaadka dhaqanka ee markiisii lixaad si qaran loogu maamuusayo xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga maanta waa maalin xusuus qaran iyo mid walaalnimo u leh dhammaan qoomiyadaha dalka Itoobiya maadaama ay wadar ahaan iyo isjacayl ay ugu wada xusayaan xuska lixaad ee toddobaadka dhaqanka Itoobiya magaalada Jigjiga waad aragtaa farxadda ay ku soo dhameysteen waa mid muujinaysa mataqaanaa jacaylka iyo walaalnimada iyo isdhexgelinta ee ka dhex muuqata dhammaan qoomiyadaha reer Itoobiya marka maanta waa maalin xusuus u mudan dhammaanba qoomiyadaha qaar kamid ah qoomiyadihii kala duwan ee ka soo qayb galay xuskan toddobaadka dhaqanka ee markaasi u dabaaldegayay xuskani soona bandhigay dhaqamadooda kala duwan oo waraysi la yeelin ayaa iyaguna cabiraya dareenkooda iyagoo markaasi wajiyadooda farxad ka muuqatay una mahadnaqay sida wanaagsan ee shacabka deegaanku ay ugu soo dhaweeyeen magaalada Jigjiga iyagoo markaasi sheegay in shacabka deegaanka Soomaalida Itoobiya ay hormood ku noqdeen soo dhaweynta iyo farxadda markaasi ay la wadaagayaan qoomiyadaha iyo shucuubaha kala duwan ee dalkan Itoobiya dareenkayga aad iyo aad buu mataqaan shucuubtada u kacsan tahay waxaan soo bandhignay dhaqankayga mataqaan deegaanka Soomaalida aan ku ahaa sida dhaantada jaandheerta jiray batarka walwaladii dheeshi xuskan lixaad ee toddobaadka dhaqanka ee ka socda xarunta deegaanka ayaa inta uu socdo ay qoomiyadaha iyo shucuubaha kala duwan ee dalkan Itoobiya ku soo bandhigi doonaan dhaqamadooda kala duwan iyadoo sidoo kale lagu soo bandhigi doono dood cilmiyeed iyo sidoo kale cilmi baadhis kala duwan oo markaasi ka turjumaya dhaqamada kala duwan ee dalkan Itoobiya uu qani ku yahay iyo hanaanka kalkacayl ee qoomiyadaha iyo shucuubaha dalkan Itoobiya ay sidoo jirka ugu wada naaloonayaan kuna kobcinayaan wadaninimada iyo ka wada qayb qaadashada horumarka qaybihiisa kala duwan